ugaas Mustafa Maxamed Ibraahin ayaa sheegay in wareejinta shahaadadan ay calaamad u tahay aqoonsiga caalamiga ah ee xeer Ciise oo ah hanaan dhaqameedka muhiimka ah ee beesha Ciise. waxaan ugu salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kolay maanta waxaan guddoonnay waa guul weyn oo soo hoyatay oo Soomaaliya oo dhan soo hoyatay iyaan maanta guddoonnay sharaf weyn ay tahay ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Geeska Afrika meel walba joogtid waxaan leeyahay hambaliyo xeerkan sida laga sheegay ama inta badan waa xeer aabayaasho 600 sano ka hor ay garteen inaan isku maamulno oo midnimadeena ku ilaalino oo wax ku wada qabsanno dadka daliskeena sidaas leeg aan iyagana si nabadgelyo aan kula noolaano iyo waqtiga ay ka fikireen oo dhigeen iyaga waan u duceynaa Ilaahay inta naxariistan Allah siiyo intii ku xigtay ee soo xafiday ee soo gaarsan iyaga Ilaahay naxariisto intii imika isku geysay ayaguna soo diiwaangeliyay ay ugu horeeyaan ayaan iyo Abdirasaaq iyo Cali niguna aad baad u maasantiin taariikhda insha Allah xusi doonto insha Allah marka waxaan leeyahay jiilkeena maanta waa inaan ku faraxdayno dhaqankeena iyo xeerkeena oo baranno iyaan ugu dardaaraya insha Allah meel walba joogtiin baan hambaliyo insha Allah ugaas Mustafa ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ላይ በክብር ከንቲባችን አስፈጻሚነት ሀተዋላ ፍረያ ወረቀቲ አቃሲጋ ሄር ዒሴ ዋለ ወረችና ያ ወረቀቲ በአሁኑ ሰዓት ክቡር ከንቲባችን በተገኙበት በታላቅ ሁኔታ ሰርተፊኬቱ